زوجي. السلام عليكم. عليكم السلام. mid aan saaxiib hore ahayn adeeru ma joogaa shaqada ma ku jira oo dalmacay la yiraahdo هادو بحر واضح. واضح miya شغالين واضح. xaguu baxay talow حاجة حافظ. xagga xaafadu qabtay haye ذنبان وحداتي عمر دباجيلا. والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته صاحبك. لا لا شوت صفري warba صفري ها meel aan ka diin maanta oo shaqadii goor ka soo baxday مر هراك صروح bismillah joornaal baa soo baxay joornaalka maantay ورقة لوردي joornaalka maantay day ما محي ورقة لوردي caadi ma aha هي eeg saaka joornaalka soo baxay saaka ma akhrisan ما آخر ده شقة سوي ترى بصوب حي هي جورنال ee waa ka hadda adag gacale shaqada iyo guriga ka dhaxaynaysa هذا هو يا جورنال محي هي joornaal baa soo baxay هي yaa soo saaray dheh يا سو صاري waxa soo saaray guddiga dhalinyarada guddiga oo guddiga muxuu ahaa wax soo saari jirto ما waxa sheegaysaa guddiga dhawaan soo baxay guddiga xeer ilaalinta ummadda Soomaaliyeed qodobada war ma qan wax soo saaray mooji aduu guddi ka sax soo saaray صح waa maqlay guddiga sheegadiisii waa qodobo dhowr ah هي number 2 war qodobadan deemi number 2 shirkadda biyaha oo dhibsatay ereyga ah xareed baa ka dhaansanay shirkadda biyaha shirkadaha biyaha oo dhibsatay ereyga ah xareed baan ka dhaansanay walaal sax ma runtaayo wariya xareedda adeer nibcada ilaahay ayagu waxay doonayaan inay ka gadaan dadka waxa ay soo waxayeen moogta lambar 2 haye shirkadda gaaska oo laf dhuun gashay ku noqotay ereyga ah walaal dhuxul baa isticmaalaa dhuxul baa isticmaalaa walaal shirkadda gaaska bay ku noqotay walaal dhuxul baa isticmaalaa walaal waa runta lambar 3 waraad dhuxusha waan laga joojiyaa lambar 3 haye tuugsatadii oo ay laf dhuun gashay ku noqotay aad ugu noqotay ereyga ah oo ganacsatadu isticmaasho walaal allahna siiyo walaal balka war allahna siiyo walaal والله aad qodobada horta sax ma waa loo baahnaa kowda laakiin qodobka aad iyo aad buu dhunta uga gashay ganacsatada masaakiinta wariya qof miskiin oo soo lugayo maalintii waxa lagu leeyahay walaal allahna siiyo soo kasaa wuxuu kala rogay ma wax kale uu raba asagoo ilaahay bisi lambarka afraad lambarka afraad wuxuu leeyahay raggii oo dhibsaday erey ay mar walba dumarku isticmaalaaniin kaasoo ah faarax laga baasto walaal marka aday kula dan lahaayeen adiga labadeena way adiga dhib male nabar xaq daro qodobka shanaad qodobka ka reebaan bal qodobka shanaad ereyga dumarku dhibsadeen oo mar walba ay isticmaalaaniin raggu kaasoo loo yaqaano ereyga ah faaxato ma dalbaha warda faaxato ma fahmaysid dalbaha miyaa war anaga fahmayni faaxatada dalab ma ahana waa qaar dhowr jeer aduu ka bax waraaqaadid ma haye faaxato marka inaad waraan ku weydiiye ma kuwa ciyaal weerad helaan ba iska dheh waa adu waa qof soo qodobka maxaa la yiraahdaa lixaad haye muqayiliinta erey ay dhibsadeen baa jira ilaa muqayiliinta erey ay dhibsadeen baa jira waa kan halkan ku qoran yahay muqayiliinta oo dhibsaday ereyga ah soo dirbiilka war caadi ma aha waa runtaayo biilkii bay ku qayilayaan niha dhibta taas aad gacay mi qodobadan waa loo baahnaa sababtoo ah biilkii bay ku qayilayaan wariya caruurtii caqatan bay qayilayaan waxa loo baahnaa maqayidii dad waa xaraan way adoo horeeye qodobka 7 aniga keeway qodobka 7 baabuurta xamuulka ah oo dhibsaday
baabuurta loo yaqaano hoos yaaca jambay magaalada kaga dhigeen baabuurta xamuulka ah ee dalka u kala doortay ha jambay magaalada kaga dhigeen jambay ma fiicno markii baabuurka hoos maro hoos yaaca ha dhibsaday jambay ba kaga dhigeenoo 2 saac baa wariga gaari xamuul taagnaanaya ha bravo ma runtahay ha qodobka 8aad haye qodobka 8aad bay dhaheen shirkadda nadaafadda oo dhibsatay waana la ka qaaday walaal qashinkii shirkadda nadaafadda wariga warta gaar gacan ba hoos ordayay gaar gacan ba hoos ordayay waxa soo iyo mid kale shaqaale ay meelaha ka soo dhacay ma fiicno shaqada waran waa in la isu daystaa inna lillahi wa inna ilaihi qodob loo baahnaa sax ha abtiga caadi qodobka 9aad kuleel ma haysan qodobka 9aad war ereyada caadi wax mar hore loo qodobka 9aad dadka danyarta ah bay dhaheen dadka danyarta ah oo magaalooyinka kule boosaska toban iyo waxa weeyday sax oo dhibsaday ereyga ah waa lagaaga habsaday raadka nin awalba miskiin ahaayo toban iska lahaa waa lagaaga habsaday ma dul qaadanaya سووا دول ده لعب ku dacwadana male lacag maxkamadda ma teeg ereyga laf dhuun gashay toos ku noqdo caadi ma aha laf dhuun gashay buu ku noqdo wallaah qodobka 10aad sanadka 2003 sanadka 2023 bay dhaheen oo dhibsaday bay dhaheen ereyga ah gooch cadde baa laf warun ya warun aduu gooch cadde ma taqaan sanadka ka hor ما ولقي سؤال اسكو هستماري قوش وارون هاي رون ويا قضبضا وقضبا مهمة بنتها ما يا قضب كحيجة هاي قضب كوي تمناد اسكاب بلدي بيدهن والله هيا عمرك هذا يبقى سوق قالين اسكاب بلدي بيدهن اسكاب ورادا يكو سوق قالين هذا ما حايسته اسكاب بلدي بيدهن oo dhibsatay ereyga ah laf gashay baa wax ku noqday ereyga ah caawa jimci warunta yo waxaan waruntayo oo siba ku baxaya iyo kalluunka la shiishiilay iyo atar iyo wax iyo kalluunka la shiishiilay waxa sidiidaya lama tuso ayaga kuwa iska bulaa ku jireen lama tuso kuwa qoray laftirkooda fakarka xagee laga keenay ma dhawe qodobka 12aad bay dhaheen madaxdii dalka bay dhaheen madaxdii dalka oo wax qabanaysay moogta madaxdii dalka war adu joornaal ma taqaan madaxdii dalka bay dhaheen oo qabanaysay oo dhibsaday bay dhaheen ereyga ah waxa dhuun gashay ku noqday oo taagay baa leeyahay madaxdii dalka ereyga ah waxba nooma qaban sebees wax u qaban waan ka laamiyada iyo waxaan iyo maxay ma waa kuwa la soo dirsaday weeye qaar soo dirsaday waa kuwa la soo dirsaday kuwa waxa ku hadlaya kaalay kuwa la soo dirsaday weeye sababta awriya waa aragtay waxa laami iyo bahalka magaca waddanka socda kuwa la soo dirsaday baa waxay oranayaan annaga muxuu noo qabtay iyo annaga waxba noo muuqaban ilaa madaxdu way dadaalaysaa aad weyn kuwa la soo dirsaday weeye marba nagu laabo balans ka hubinay ku soo noqon saade haddana waxay dhaheen waxa hoos ku xusan bay dhaheen part 2 oo laga hadlayo part 2 bay dhaheen part 2 la socda bay dhaheen qaybta labaad part 2 qodobada soo socda hoditaan hodida bulshada bay dhaheen hoditaanku waa jira hoditaanka bulshada bay dhaheen waa jira hoditaan adigu la maluuga hoditaan waa jira hoditaanku waa jira wuxuu ku jira ma taqaana hoditaanku aad horta waa jira qodobadaasna wax muhiim ah ka hadleen laakiin madaxdu adeer wuxuu waa qabatay kowdadii kuwa la soo dirsaday iyo kuwa mucaarada baa waxa afka u galiyay dad adeer laakiin kelmad faaxitaan maxaa tiri waa qayb aan fahmin baa jiray faaxitaanka maxaa tiri sibaad u fahmin qayb aadan fahmin baa jira adeer faaxitaanka iyo waxa siraad weyn buu baahan tahay kowdad faaxitaanka ma fahmin faaxitaanka ma dalbaha aan fahmaydaano ma aha wiil baa tahay ma laba la isaga dambeeyay mid wiil baa tahay kaalay mid la isaga dambeeyay miya حاويدي عيال ورا waa maqashay day wareede tiri adeed waa iska sii baxayay waa inoo mar kale iyo bal goortay soo baxaan adigu ma joornaal bay igula soo hortaysaa ima soo saarantay marka kale faaxitaan bay igula soo hortaysaa war ilaa rag baan nahayo wararka iyo magaranaysa waa la sugeeyay bal waxa ay sheegayaan ay leeyihiin waxba la hodayaa waan isku imaanaynaa bal wax ka soo baxa yaa walaal laakiin kaalay jaab astaa sheegeen wala waa kula dan lahaay iska maada karan halka
بيق ابو يحمي جيرانيه ما يسكت ولا بيق ابونا مالني ما ولا حافظ هذا واحد بس كسي بحياه أرهنا هي